أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا مانتا. الله محاوري قبوحة ما مليون dadkay caydaa ما مليون saanay samaysaa hadaa xataa runta sheego oo waxa jira ka hadlo wax iska kiin bedelayaaba iska yar laakiin waxa leedihiin waxbay caydaa marka waa in idinka ta inta la idin fiiriyo laga tago wax kastoo ku gaara waa in laga tago in wax la qariyo un baa raadinaysid marka way dhacdaa maanta waa waxaan baxayaa Bambaasa raaxa ayaan maanta u baxayaa hadii alla nafta ii daayo aan cabayaa shaahi daawa ama daawati ka u taqaanaan kan waa istakiinkayga hilib ma cunaayo laakiin malawaxaygina waa kana malawax ayaan dalbaday ma sha Allah la ii keenay maqaayada maanta waxaan u baxayaa Bambaasa raaxa waxaan u noqonayaa waa inaad adigu naftaada u noolaataa horta vacationku gurigaaga hadaa inta ka baxdid hotel aad degtid adiga vacation bay ku tahay adiga vacation ayay ku tahay soo sidaa darteed vacationku wax qurux badan bay leeyahay ma sha Allah Kenya waxay tiraahdaa Angela Mayaya bay ku dhahaan Soomaaliya waxay ku oranayaan pancake bay ku oranayaan anaguna waxaan dhahnaa malawax marka malabkaanaan ku darsanaya insha Allah waxaan aadayaa Bambaasa raaxa horta hore waxbaan raadiyaa waxaan wax u raadiyo waagi hore waa idin sheegi jiray wax kasto igu dhaca waa idin la wadaagi jiray hadda waa iska daayay sababtu waxa weeye ma kala taqaanaan wacyiga dhaca cayda waxaas ma kala taqaanaan marka sidaa darteed qof kasta horta wuxuu igu sameeyo horta ma og yahay asagu qofkaasi ama inta markaas asaga la saaxiibka ama xulufada la ah ma og yahay ilaahay oo adoonkiisa aan nahay inaan ku sheego wax ma sameynayso wax kasto dhacay ama Soomaaliland ka dhacdo ama Nairobi daan maanta joogaha ka dhacdo laakiin muhiimaddu waxa weeye inaan anigu maskaxdayda dhisay inaan anigu isbedelku inuu adiga ka yimaada inaan anigu isbedelay weeye muhiimaddu muhiimaddu waxa weeye anigu inaan isbedelay oo aan noqday wax aan reality runta inaan bartay anaa runta bartay awalse runtaanan aqoonin runta ma aqoon markaan ku leeyahay been ma sheegi jirinin laakiin dadka wax loo sheego waxaan horta hore ii keentay dadkan horta hore aan la joogo ma ogol yihiin runta mise ma ogola Soomaalida runta caybay u taqaanaa marka runtii aniga idin sheegi jiray oo iska daayay aniga isu sheega qof kasta intuu qalad ka galo hadaad ka hadashidna waxa lagu oranayaa waxaad samayso dadkaas aad caydo waxba ka sheegto ba oranaysin laakiin wax kasta oo aad geysateen ana waa ogahay adna waa ogtahay ilaahayna waa ogyahay inaan anigu aadana u sheegana haday ahaan lahaayeen dad wanaagsan wax badan oo Hargeysa aan ku soo arkay ma aha waxaan dalka ku arkay waxaan dadkii ila socday ay igu sameeyeen baan ka hadli lahaa waxay igu sameeyeen baan ka hadli lahaa laakiin anigu ma ogaha yes ayaguna ma ogyihiin yes ilaahayna ma ogyahay yes inaan sheego maxaa big deal ah oo hadaan aamuso so that's why baanan waxba oga hadlaynin laakiin dalku horta dal hadaa maqashaan dal iyo dad kala barta waa waray
dal iyo dad horta kala barta dalku qaarna dawaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo ama cimilada ama wadanka sidoo u sameeyay qaarna dad baa ku dardaray oo dhisay oo qurxiyay oo wax ka soo saaray laakiin dadku ama kuwa waxa sameeyay ha noqdeen ama kuwa dalka ku nool ha noqdeen dadku waa dad waxa qaladka sameeyana dalka ma ahan waa dadka qabiilka qofka markuu qaldamo sharka loo gelinayo qabiilna qabiilkaani la sheegayo waa oday waa hore dhintay laakiin ashahadaawa laakiin ma ahan qabiilkan qofkan ma qofkan magac uu leeyahay marka magacii qofkan qaldamay magaciisa inaan sheego iyo qalad ku sameeyay waxay aniga ii kordhinaysa malahan soo anaaba adduunka waxaan u joogaaba in ana qaldamo ayaguna qaldamaan ilaahayna uu yahay ma qaldama inuu allah yahay bismillah ma qaldama inuu yahay allah ko aadana qaladkiisa anigu ma hagaajin karo wixii aniga markaan soo galay baraha bulshada aan ka hadlayay naftayda ahay wixii la igu sameeyay inaan ka jawaabo aqoon la'aan baa ii geysay iyo anigu aan weli gaarinin heer anigu aan isgarto baa ii geysay laakiin maanta waxaan ku jiraa heer aan gartay wax walba community-gina aan bartay sida aawadeed waxaan raadin jiray wax la yiraahdo affirmation waa inaan dad ka raadiyo inay gartaan oo sorry dhahaan laakiin markaan bartay inaan qofna laga raadinin aadan ka helaynin adigu naftaada inaad sorry istiraahdo horeyna u socotid maalintaan gaaray baa waxaan iska daayay in qof wax dambi galayna aan ka hadlo qof ooyayana aan falanqeeyo qof dambi iga galayna inaan u jawaabo maantaas waa iska daayay hadda qofkaan ogoon maanta ogow aniga waxaas waan ka kora maskaxda haddaadan ka korinina korkaan oo aad ka kortid waxba kuma samaynayo inaad weynaatid inaad cayishid iyo inaad kortid iyo aniga maskaxdaan ka kora sidaa darteeda waxay u kaliftay inaan wax badan inta arko inta uga tago wax badan oo dadku waji kale la lahaayeen waji kale markay u soo baxeen aan arkay ma falanqeynin oo ma oranin day shalay waxaanay lahayd ama shalay waxaanu lahaa maantana saanu leeyahay ma dhahayo soo waxba kama bedeli karo anigu iska daayay channelkayga qofkii daawada oo subscribe-kii sababkii share-ka iyo saar maanta waxaan aadayaa Bambaasa raaxa iyo gurigeygii adduun baan tegayaa haddii alla idmo danahan meeshaan usoo aaday waa inaan intaad keligaa meel fariisatid xataa haddaad gurigaaga go-aan ku qaadan weydid inta magaalo kale la tago ama hotel la tago ama baadiye la tago baa keligaa meel la fariistaa naftashiguna adiga inuu kaa yimaadaa la rabaa inaad adiga keligaa isla tashatid oo go-aan qaadatid ta ugu daran tashiga ugu wanaagsan because waxa ogtahay caafimaadkaaga because waxa ogtahay dhaqaalahaaga because waxa ogtahay energy-gaaga because waxaad ogtahay wax kasta adiga kula nool laakiin qofka kuu talinaya hooskaaga ma warqabo marka sidaas darteed xaalad guud unbuu kaala talinaya warwaano maamuliyano idin leh noloshaydii waxnaata asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu